shirka beesha Mudullood waxaan rabaa inaan u mahad celiyo marka ugu horeysa Khalif Abdul Qadir Macalin Nuur waan uga mahad celiyo gogoshan qiimiga badan oo dhigay hogaamiyana mu'assasada Macalin Nuur oo aan wada ognahay Allah naxariistay doorkii wanaagsanaa oo ku lahay faafinta diinta iyo dib u heshiisiinta waxaana iska iloobin ugaasyada kala duwan ee beelaha Mudullood ee meesha fadhiya iskama iloobin duubabka dhamaantood qofba meesha uu ka leeyahay aayadihii lagu furfurtay waxa kamid ahay la khayra fi kathir min najwahum illa man amara bi sadaqatin aw ma'rufin aw islahin bayna an-nas marka anaga waxaan ka soo galeynaa aw islahin bayna an-nas islah wuxuu noqon karaa laba qof wuxuu noqon karaa ka badan kan marka waa beelaha Soomaaliyeed kamida oo soo martay dagaal sokeey oo dadka ay la qabtay oo jecleysatay inay iswarsato marka waxaan rabaa inaan uga mahad celiyo gudigii dadaalka aan kala go'al ahayn soo galiyay walaalkay gudoomiyay hore Madaale oo soo hogaamiyay ganacsatadii ku taageertay iyo duubabka runtii soo hogaamiyay iyaguna doorkooda beeshan inkastoo aad leeyahay aqoon badan yahay laakiin waxaan ku maqli jirnay dhowr shay shayga koobaad waxa waaye dad ahlu diin shayga labaadna waxa uu ahay ahlu sadaqo shayga saddexaad waxa uu ahay dad soo dhaweyn arrimahaas la sheegayo waxa ku jira sirta dawladnimada xoog lagu ma helo aqli lagu ma helo abaabul lagu ma helo ilaaha bixiyo subhanahu wa ta'ala meeshay aadayso waxa laga fiiriyaa intaas waxaan rabnaa marka ugu horeeyay bal inaan dib u mulixsano dhaqankii wanaagsanaa ee dadka naga horeeyay nooga tageen ee ahay maxaan ku iraahdaa dad soo dhaweynta diid jacaynka karamka kaasaan rabnaa inaan fiirino adeer madaxweyne Cali Mahdi ayaa ka sheekeeyay doorka ay qaateen doorkaas inay qaataan deegaan kaliya ma ahayn ee wuxuu ahay dadaalkii aan kala go'al lahayn ee culimadii Mudullood ay ku bixinayeen qabiilka dhexdiis kaasoo mararka qaar gaarayay dadka kale baysna u ahay waxa ma taqaanaa calaamo u ah meesha shirka lagu qabto meeshan waa meel diimeed waa meel quraan lagu aasaasay waa meel diinta lagu barto marka runtii aniga waxaan aaminsanahay shirkaanu inuu guuleystay ama uu guuleysanayo waxa calaamo u ah meesha lagu qabto maxaa yeelay goobtu waxay cadeynaysaa dadku meesha ay u jeedaan ay ku kalsoon yihiin ani markii la sheegay oo la yiri kaftan yaran gelina raali ahaado mawla Macalin Nuur lagu qabanaya waxa asir mawla Macalin Nuur ma diin iyo rabay maxaa laga doonay laakiin runtii mawla wuxuu u taagan yahay dadka quraan in la baro kaliima dadka inuu heshiisiyo u taagan yahay diinta Ilaahay dadka in lagu baro u taagan yahay runtii wax fiican aadan uga mahad celiyeena ajir badan Allah ka siiyo dadka ka qayb qaata waxaan rabaa inaan iska iloobin doorka firfircoon oo ay qaateen dadka dibadda jooga qurba joogta Mudullood iyo sida ay mataqaana contribution-kooda ama xoolo ama aqli ama fikir ay u galiyeen aad ugu mahadsan iyagana intaas markii aan ka soo gudbo waxaan rabaa dalkan Mudullood xoogooda ugu badan waxay galiyeen dawladda dhexe wax weyn aan ka soo baxay mararka qaar waxa laga yaabaa dadku inay saameyn kugu yeeshaan horta dawlad dhexe hadaysan jirin oo qaran jirin oo nabad jirin maamul goboleed laga ma fikir karo ani marka waxaan aaminsanahay xilligii saxda ahaa ayaa la geliyay in dawladda dhexe ay fariisato waxa lagu bixiyo xoolo waxa lagu bixiyo waqti wiilal badan oo dhinto oo dhaawacmay iyo gabdhaba waxaan xasuustaa xilligii aan xafiiska joogay ciidan aan soo qoreynaa meelaha la gaari karo marka ay yimaadaan qaar badan qoryahooda la goosanayaan kuwana waa dagaalamayeen waa dhinteen waa dhaawacmeen iyo koojiisas ay joogeen dadkaas boqolkiiba 75 waxay u badnaayeen beesha Mudullood nasiib daro waxay naqatay in lagu dhibaateeyo hadda oo ay u takooran yihiin miyaa tahay Mudullood rajamaleed oo shala markii qaranka dadka laga wada baqaayay oo shabaabku meel walba joogay waa lay baahnay hadda layma baahan soo arrin khatar ma nin saraakiisha ciidamada kamida oo ragii soo hogaamiyay kamida ayaa mar dhow u yimid waxa ay taliyo waxaan rabaa bal tala in ay ga siiso ciidamadan see isleedahay loo hagaajiyo
wuxuu yiri ciidan ka fiican ma jiro ciidanka see ku dhici karta wuxuu dhahay dad mushaar la'aan ku soo shaqeeyay oo xira aan lahayn oo qorigiisu garabka u saaran yahay oo hadduu dhinto iyo hadduu dhaawaco ma dadkiisu ay duuganayaan xagee lagu arkaya warkaas aniga qaraabanimo u sheego ma alla igata laakiin mas'uuliyadii amaam Allah tabaaraka wa ta'ala aan qaat ee dadkaas waajibka u guteen maanta inay soo gaarsiiyaan raba waxay u guteen si dadnimo leh lagama xureeyeen magaalada Muqdisho iyo deegaanada ku wareegsan haddaysan sidaas u dhici lahayn wiilasha iyo gabdhaha ku jira difaaco oo beeshaan ka tirsanow dawladnimadii iyo difaaci sida u wada kuwa kale Soomaaliyeed oo walaalihiina garabsada qarannimadana inta ka gaarsiin kartiin gaarsiiya haddii marka wiilka mudulood intaas gartay odaga mudulood maxaa laga rabaa inuu garto madaxweyne xasan sheekh iga sheekay maalin dhaweyd nisar gaalana waa ii sheegay ayaan ciidanku ay gadoodeen jamaam iyo eeriyadeeda yaa u tago dhax ciidanka waa dhex fadhiistay askarti iyo wixii la socdo waxay xagga iga taga markay eed sheegteen boqolkiiba 95 mawir asagaaba joogo sheegi doonaa aniga wuxuu noo sheegay professorka noo sheegay wuxuu dhahay inaa calooshiisa furo wuxuu dhahay intaas oo qofaan ahayn saddex ila dhalata ku jirta qaar waa dhinteen anaa ka nool dhaawacaan ahay waxaan u dagaalamayna xoolama ahee dulmigaan diidana madaxweynuhu asaga sheegi doona assoonshinaysu inuu difaaciina ku naqdo ilaa hadda difaaci ku jiraan aniga waxaan aaminsanahay sirta dawladnimadu waa taas oo jiinka mudulood ku jirta oo ah waxa lagu faani karo waxaan rabnaa marka marxaladda labaad inaan u gudubno marxaladda labaad maxay tahay dalkaanu muxuu u baahan yahay dawladda u baahan yahay waa nuucee nabiga sallallahu alayhi wasallam waxaa jiray xilfi la yiraahdo xilful fuduul saaka xilful fuduul xilfi la yiraahdo oo quraash dhexdeeda ka dhacay oo ay ku go'aansadeen inay dulmiga ka soo horjeestaan oo nabiga uu xaadiraa jiray oo uu yiri hadii la soo celin lahaa xilfi aan ka qayb galin lahaa kaasa ka jira meesha ay laadaa waxa waaye mudulooda waxaan rabnaa dulmidiid inaan naqano waxaan rabnaa dulmiga nafteena inaan u ogolaanin غيركeenna inaan u ogolaanin in la dulmiyo maxaa ula jeedaa waxaa ula jeedaa sirta dawladnimadu waxa waaye qofka daciifka asoo xura oo sharaf leh inuu ku noolaa karo daciif waxa loola jeedaa qorama haysto dad badan uma joogaan meesha mudulood mas'uuliyad gaar ah ka saaran dadkaas inay fiiriyaan imaamka khayr Allah siiyo wuxuu iga sheekeeyay beelihii magaaladan deganaay oo dagaaladii sokeeye dhibaato gaartay oo wax ka tabanaya inay bilaabeen inay la fariistaan waxa kamid ahay beelaha banaadiriga khudwa fiican waaye waa khudwa muwafaqa arintaas aadan u dhiiri gelinaa beelaha kale ee laga yaabo ama Allahubaba inay dhibaato gaartay siday rataba hoo gaarto waxaan rabnaa beesha mudulood hadalka inay ka bilaabaan oo kuwaas la soo xalliyo aan horta loo boodin kuwa waaweyn barakada iyo khayrka wuxuu ku jiraa qofka dareemaya in ama laga xoog badan yahay ama laga badan yahay ina gacanta soo qabato waana sirta dawladnimada intaas markii aan ka gudbo waxaan rabaa inaan aado dawladnimada laftigeeda aniga waxaan aaminsanahay dad iga aqoon badan oo taariikhdeeda laha jooga laakiin maalinba meel ka dhaceys maalinkii koobaad oo dadka Soomaalida ay gumaysiga la diriraayeen aad loogama fikirin dawladnimada munaasabka u ah dadkan ee waxa laga fikiray gumaysiga hal la kiciyo gumaysiga markii la kiciyay wixii yaraay oo khibrad ahaa oo la helay ama Talyaani ha laga dhaxlo ama dhaqankii ha laga keeno kaas wax lagu dhis waxa isleeyahay haddii ay dhici lahayd shirweyne sidaan iyo shirweyne Soomaaliyeed oo dadku isku warsaayaan inay marxalad ka gudbeen marxalad halgan ay ka gudbeen waxay u gudbayaan marxalad dawladnimo marxalada dawladnimo waxay u baahan tahay heshiis dawladda la rabo nooceeda waxa dadka ay ku dhaqayso adeega laga rabo iyo dadka waajibaadka saaran ma dhicintaas waxa soo dhacday laba doorasho mid koobaad waxa lagu doortay aadan cadde mid labaad waxa lagu doortay Cabdirashiid labadaba Allah u naxariisto kadibna waxa dhacay inqilaab waxaan ku sii soconay annagoon wali isweydiinin dawladda aan rabna maxay tahay
sharciyada aan haysano kuwa aan haysanay dhammaantood dad aqoon-yahano qoraayeen ama dad khubaro ah waxa laga yaabaa mararka qaar inaysan ka turjumaynin rabitaankeenna inaysan ka jawaabaynin baahideenna taasaa waxay keenay dacfiga dawladnimada taasaa waxay keenay kalsoonida dadka inay yaraato taasaa waxay keenay cadaalad darradu inay sii socoto maxaa u baahannahay marka waxay waxaan u baahannahay shirweynahan inuu sii socdo beesha mudulood ka gudbo beelaha Soomaaliyeed gaaro Soomaali iswarsato dawladnimada ay rabto iyo sida loo fulinayo waxa lagu heshiiyay heshiiska bulsho ayaa waxa loo bedelayaa constitution sharciyadana meesha laga qaadanaa kaasa waxa loo sameeynaa in maxaa la yiraahdaa hab loo fuliyo ayaa yeelanaya waxa ila tahay xoog ma aha xoolo kaliya ma aha wiilal fara badan iyo gabdho xoog waa fikir xoog waa inaad garataa marxaladda aad joogto iyo waxa u baahan tahay iyo sida aad uga turjumi karto waxaan qabaa marka beesha mudulood maadaama shirkan ay xoolo badan ku bixisay waqti badan ku bixisay beel dhaxdhaxaad oo beelaha Soomaalida ay tahay ummadda Soomaaliyeed sharaf ay u hayso inay shirkan sii wado oo uusan joogsanin duubabku madaxay lulayaan waxa u qaatay inay aqbaleen imaamkana waa ku soo ballanna warkaas marxaladda hadda aan joogno inaan wax ka dhaho haboonta aan isleeyahay aanoon hadda meel gaaran u soconin oo cid gaara aan culaadinaynin cid gaara aan riixaynin waxa ila taan rabaa inaan sheego maadaama dawladdan waqti la siiyay waqtigeedana oo gabagaba yahay waxaan rabaa inaan dadka xasuusiyo maalinkii madaxweyne Cabdullaahi Farmaajo oo guuleystay aniga madaxweyne Xasan Sheekh waa kaas meeshaas oo fadhiyahay annagoon ballaminaan garbaha ka joogsan intiinaan qofna yiri warbax baxa ee madaxweynaha